marka koobaad in soo dhaweynaa barasaabka gobolka saaxil maayarka magaalada Berbera ahna duqa golaha deegaanka isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo ku-xigeenkiisa xogayaha fulinta dawladda hoose madaxa caafimaadka iyo fayadhowrka degmada iyo shaqaalihiisa iyo dhammaan bahda caafimaadka degmadaba inta markan ka gudbo iyo dhammaan shacab weynaha xaafadan Finland iyo goobta aynu joogno mudanayaal halkan maanta waxaynu u joognaa inaynu xariga ka jarno xanaanadan oo laga dhisay xaafada Finland qaybta magaalo cad laga dhisay oo runtii ah xanaano aad iyo aad u weyn maanta marka xariga jarkeeda iyo xafladeeda iyo fooladeynteedina halkan u joognaa insha Allah dhammaan waxaanu ka salaameynaa madaxda gobolka kala duwan ee ugu horeeya barasaabku maayarka xigeenka dhammaan agaasimaha waaxda aanu joognay ee Finland waxaanu leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaanu leenahay oo kale xanaanada xariga inooga jarayo inaga iska leh insha Allah aynu ilaashano intaasina waa dardaaran assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahadle waxaan ku faraxsanahay maanta oo ilaahay ugu mahad celinaynaa in aanu furnay ama la furayo xanaanadii afaraad ee health center loo yaqaano ee heerka labaad ku jirta caafimaadka marka laga hadlayo xanaanadaas oo aynu dareensanayn in baahi weyn ay bulshadeenu u qabtay baahida markaanu soo gudbina anagu ama wasaarad baan kula galgalanaa ama dawlad hoose hadba cidii wax ka taraysa waa xanaanadii afaraad ee dawladda hoose ay kor u qaado ama ay dhisto marka laga reebo xarumaha yaryar oo iyagu maanta maraya 9 ilaahay wax loo mahadnaqo weeyaan muddadan imika aanu shaqeynayay waxa la dhisay 12 xarumood 12 ka xarumood marka laga reebo galoole xarumaha kale oo dhan waxa dhisay dawladda hoose waanu mahad celinaa waanu ducaynaa iyagoo dawladii dhaxna maaragtay mar walba aan rajaynayno in iyaguna mar walba maaragtay ka warhayaan gobolka waxaan aad marka u amaanaya sida hufan ay nolol shaqeyso madaxdoodu laga bilaabo agaasimeyaal ilaa heer maayar barasaabka waxa isagana farxad gaar ah oo ah inuu maanta xanaanadii labaad xariga ka jarayo tii galoole baan ogeyn ambaasadii baan ka warhaynay gobolka horumar badan baa ayaa caafimaadku gaadhay horumarka waxa tilmaami kara halbeegyo la isticmaalo marka la doonayo horumarka waxay dadku ku hadlaan ma aha laakiin marka laga hadlayo horumarka caafimaadka waxa la eegaa indicators waxa la yiraahdo halbeegyo dadkuna inay fahmayay tahay dhallaanka 5 sano ka yar inteeba dhimatay baa la eegaa waxa la eegaa carruurta yar ee 30 ama bisha jirta imisa nool oo imisa dhimatay baa la eegaa hooyada imisa umul aroortay baa la eegaa hooyooyinka imisa dhiig baxay baa la eegaa waxyaabo badan hooyooyinka imisa miyiga laga keenay magaalo lagu daryeelay baa la eegaa waxaan dadku ka waramayaan kulba Facebook ku qorayaan horta aqoon ma laha caafimaad baa liita caafimaadku markuu liito halbeeg baa loo isticmaalaa uu liita halbeeg ilaa aad barato oo aad aqoon u yeelato ayaa dadka maaragtay wax u sheegi karaysa waxaan markaa arrinka ku soo gabagabeynayaa 7-6 hooyo ayaa labadii sano ugu dambeeyay umul arooray gobolada kale hadaad ka wareysataan way ka badan yihiin boqolkiiba boqol hubnaa taas waxa keenay ilaahay baa horta ugu horeynta mahadle ambalaasyadaas iyo gawaadhidaas shaqeynaysa iyo shaqaalaha bilaashka ugu shaqeynayana adeega way fuliyeen waanu mahad celinayaa mar labaad maamulka iyo ka degmada iyo gobolka dadweynaha reer Finland gaar ahaan xaafadda magaalo cad qaybta magaalo cad ee halkan joogta bahda saxaafadda salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii farxad weyn bay inoo tahay inaan maanta xariga ka jarayno MCH ugu weynaa ee magaalada Berbera ka hirgala waa laga soo sheekeeyay kaalinta dawladda hoose ee magaalada Berbera ee caafimaadka degmada iyo ka gobolka ka jirto runtiina marka heer degmo la eego waxa weeyaan mandate-ka dawladaha hoose ee qaranka ayay tahay inay kor u qaadaan ama tayaan caafimaadka asaasiga ee bulshada taasina waa qayb ka mid ah shaqadeedii oo aan maxay ku baraarugsanahay qabanaynana qorshaha dawladda hoose ee magaalada Berbera waxa weeyaan in la dhameystiro MCH-da iyo xarumaha caafimaadka ee degmada Berbera iyo degmooyinka degmo doorashada ah aan ahayn ee degmada hoos yimaada iyo gobolka guud ahaanba waxaan ka qaban karno waxaan rajaynaynaa muddo dhow in arrinta koobi doono dhowr iyo 10 xarumood ayay hirgelisay dawladda hoose magaalada Berbera dhowrkii sano u dambeysay baaxadda iyo miisaanka ay leedahay kharashka ku baxayna waan ognahay MCH kani wuxuu ka mid yahay mashaariicda 2020 aynu ku soo koobayno ee u qorshaysnaa in golaha deegaanka ee magaalada Berbera ilaahay baana mahadlay inuu suurtageliyay waa MCH ballaaran oo inta ka kooban oo draintiisi wata leerkiisi wata dawadiisi wata
biyogelintiisii runtii wata markaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo suurtageliya dhammaanteen waxaan hubnaa in xaafadan Finland oo ah xaafad aad iyo aad u koraysa u koraysa dadka danyartayna ay ku badan yihiin oo runtii aad iyo aad loo degeemaynayo inuu door weyn ka qaadanayo oo culays badan ka qaadayo MCH-kii xaafadda Moscow oo culays badan ka qaadi doono waxaan aad iyo aad u amaanaynaa inuu bogaadinaynaa in wasaaradda caafimaadka guud ahaan min wasiirkeeda ilaa iyo isduwaha oo garabkayga taagan oo runtii iyaguna hawshooda ka soo baxay marka heer gobol la eego ballanteenu waxa weeyaan inaan wada shaqeyno reer Finland waxaan ku tirtirisaynaa inay ilaashadaan beeristii baa loogu sameeyay dhir badan oo banaanka ku taala baa jirta MCH-ka shaqaalaha imanaya min washman ilaa hablaha cleanerska ilaa shaqaalaha caafimaadku waa dad xaafadda badankooda ku cusub inay maxay tahay soo dhaweeyaan gacafro ku soo dhaweeyaan oo la shaqeeyaan ilaahayna waxaan rajaynaynaa guusheeda in wanaag inoogu dhameeyo wana mahadsantihiin dadka reer Berbera inay runtii dhagaha u furaan oo ay fahmaan adeegyadan iyo muhiimadda ay u leeyihiin adeegan caafimaad ee maanta halkan ka furaynaa waa adeeg runtii ka duwan adeegyada kale aynu qabanno haddaynu laami dhisno 5 kilomitir oo laami haddaynu magaalada ka dhisno hal mar baa la dhisay muddooyin badanna wuu sii jirayaa muddooyin badan ayuu sii jirayaa lacag badan oo qaaliina ku baxaysaa kuma hayo culays dambe markaa la dhiso degmadii kuma hayo umana baahna joogteen dambe oo dhaqaale ku baxaya ma jirto iyadoo dee daadada iyo duufaanyo xasqaadan mooyaane haddaba adeegan maanta aynu hor joognay caafimaadka waxaan doonaya inay dadku fahmaan inay dhugtaan MCH-kan xanaanadan weyn ee 24 saacadood u adeegi doonto hooyada iyo dhallaanka 24 saacadood waxay u adeegi doontaa hooyada iyo dhallaanka oo ah mas'uuliyaddeena culayska ugu badan ee raggu ay ka mas'uul yihiin ama ugu warwarka badan waa gabadhiisa iyo ilmihiisa waxa ugu warwarka badan sidaa awgeed adeegan 24 saacadood halkan ka maanta kayba furaynaa wuxuu ka qiimo badan yahay 5 kilomitir dhulka ee wadada aynu sheegnay ee asfalka ee qaaliga ah ayuu ka qiimo badan yahay waxyaabo ka qiimo badan waxa weeye horta marka ugu yar yahay 30 qof ilaa 28 qof baa ka hawlgelaya 30 qof oo shaqo abuura ayaa halkan ka hawlgelaya oo mushaar fiican ka qaadanaya ilaa waashmaan ilaa nadiifiso ilaa iyo dhakhtar iyo ilaa darawalin waxay doonaan noqdaan adeeg 24 saacadood oo 3 shifti walba margelayo marka horta marka hore shaqo abuur baaxad la dhalinyaradeena jaamacadaha ka soo baxay iyo dhalinyaradeena aqoonyahanka ay bil camalka ha wuxuu noqonayaa mid fursad siiya marka labaad maadaama uu yahay 24 saacadood 7 casho soo jimcaaya xatona malaha iyo khamiis iyo saacadona malaha 24 saacadood iyo 7 maalmood uu shaqeynaya bishuu shaqeynaya sanadkii uu shaqeynaya dhammaan adeegyada halkan yaala ee uga baahan tahay hooyada iyo dhallaanku ay uga baahan yihiin ee lagu daryeelayo hadday tahay mushaharka shaqaalaha hadday tahay kawaashmaanka hadday tahay kadrawalka hadday tahay biyaha hadday tahay leerka iyo hadday tahay dawada oo imika ku bilaaban waqtigan imika free waa wax lacag loo qaadi haweeney taari jirin waa dhammaan lacagtaas waxay ka imanaysaa dawladda hoose degmada Berbera dadka reer Berbera inay fahmaan intaasoo goobada magaalada ku yaala intaasoo goobada gobolka ku yaala dhammaanteed waxa laga fiirgarayaa ama haato waxbarasho ama haato caafimaad cashuurta laga qaado dadweynaha dadka degmada Berbera ku nool ayaa lagu qabtaa way ka macaan tahay way ka mustaqbal badan tahay inay yahay aadooyinta inoo dhisaan dabadeedna ay naga dhaqaaqaan birtaas xidho waxaynu dhabarka saaranay meel aan ka dadka noo madhan mooyaane dana ma waayo cashuur lagama waayo dadka noo madhan mooyaane ama magaalada isbedesho mooyaane cashuurta degmada ururiso ayaa hooyadana ku helaysaa dawo firiya iyo adeegyada shaqaalaha mushaarkoodana mid looga warwarayo oo hay'ad heblaayo ka baxday iyo hay'ad heblaayo ayaa 3 sanadood noo haynaysa maahe waxaynu dhabarka saarnay oo siyaasadda qaranka lagu saleeyay inay dawladda hoose ay ahaato mid adeegyadan u qabata dadka marka
وأنا فهمتها وضعنا سمعيني وحكى قيمة بدن برع في مدن هوية دلان كو سمعيني أو كهلا المهاسي هوية داسري كهشد ويكهشو marka inta ka imaado aan ku nuuxnuuxsaday kolay waxaan jecelahay dadka xaafadan degan marka hore xaafada Finland baa la yiraahdaa gaar ahaan qaybta magaalada cad ama xaafada ka farcanta Finland xaafada labaad ee magaalada cad waxaan u mahadnaqaynaa golaha deegaanka degmada Berbera waa xaafada golahan ka yagleelantay oo ka aasaasantay 185 qoys baa lagu bilaabay waxay nasiib u heleen dadkii qarniyada soo deganaa magaalada inaanay waxaan nasiib helin bay nasiib u heleen adeegyadoodii oo dhan way u dhan yihiin waxa qura u harsan waa sariibadana dhulkeedu waa diyaar qorshaha sanadkan xanuunka COVID-19 baa dib noogu yara laabay laakiin waxa ugu horeeya ee u haray lagu gabagabeynayo sariibadu qura diyaar harsan sariibadana dhulkeedu waa diyaar weey waxa ugu culus waa dhulka dadkii xaafadda waxa ku soo beeray 300 oo kale oo qoys baa ku soo galay 180 waxa barbar socda dadkii la naayagna dhisanaya magaalada xudunteedii bay noqonaysaa aad baan runtii ugu mahad celinayaa dadka xaafadda magaalada degan oo runtii aad u xilqaamo waxyaalahan ku amaanayo ee marnaba aan ka suuleyn taariikhda maskaxdiina ku xadhanaan doonta waa dhireenta xaafadda dhireysan 180 kii guriga hore maanta markaan marno guri walba geed baa ku hor yaala runtii geedkaana waa aday antifacsanaya ilmahaaga wuxuu odhanayaa geedkan markii la beeriyay waan ogaa buu odhanayaa isagoo weyn oo 100 jir ama 50 jir ama 60 jir ayuu soo gaaraya waxaan leeyahay aynu mudnaanteena siino in israacino oo baahidaada ta gacantaada ku jirta ha kala hadhi maalene xaafadan waxaan leenahay marka lagu qabtay adeegyadii oo dhan lagu qabtay dee adu gacmaha laabanin dhiree ha isku yeereen dhirta si jeedka iyo soo jeedka geedka ku rid oo beer baan ku leenahay xaafadu marka waxay noqon doontaa xaafad ka qurux badan xaafadaha kale magaalada waxyaalaha ugu quruxda badan la soo jiita wadada iyo dhirtu hadday isku dhacaan qurux ka maqan ma jirto ilaahu buu burcaas ku noolaado noloshu way isbedelaysaa dadka reer magaalada xaafadda in badan baa isbedeshay noloshoodu isbedeshay tan kalena aad bay isu bedelaysaa waxaanu doonaynaa qof kasta oo magaalada Berbera ku nool inuu sharaf iyo cis iyo nolosha ugu wanaagsan ku noolaado in ubadkeenu aadaan ubad waxbarta haddaynan ubadkeenu waxbarashada ku dadaalin oo inaan waxbarashada garab ku siinin hadhow waxaad ogaataa xamaali waa shan buu kaa noqonaya inkastuu dee ka mid yahay bulshada xamaankii waashbaanku haddana adigu qof kale ha kuu shaqeeye adigu noqon loo shaqeeyo noqo adigu ilmahaagu ha ku fakero ha noqdo inuu dhakhtar noqdo ha noqdo inuu injineer noqdo ha noqdo inuu bayloon noqdo ha noqdo inuu noqdo ciyaaro foofo dadka sare inuu noqdo weligaa meel sukaha ku hamiye marka waxaan leeyahay xaafadan idinkaa ugu sarreeya sacabka niga daayo waa mahadsantihiin sacabka iska daaya waxaynu doonaynaa inaynu ka nolol fiicnaano mid kasta oo isagu wax ismooday xaafadda magaalo cad waxa hareeraheena deganaayo markiibayna soo hujuumo dhulka soo doontay niman qurbajoog la yidhaahdo qurbajoogta haddii dhisi weydo loo joojin maayo qof kastoo dhisanaya waan soo dhaweynaynaa dhisaan leenahay waxaynu waxaysunnahay qofka kuleelkeennala qaata waxaynu waxaysunnahay qofka duruufteenala wadaaga waxaynu walaalo iyo qaraabo nahay qofka nolosheenna la jaan qaada qofka magaaladeena camira ayaynu dadka iska xignaa waxaysunnahay laakiin nin maqan iyo nin dhisan waayo dhulkiisu ila ahaan maayo sharci baa la siiyey sharcigaasi miduu leeyahay sidaas 300 guri dadka reer Berbera magaalada laga soo saaray loo dejiyey ayaynu 500 iyo 1000 kale dambana dejin doonaa qof kasta oo muwaadina oo doonaya inuu wax dhistana diyaar baan u nahay hadday dhab ka tahay inuu dhisto anagu waxaan diyaar u nahay inuu dhisan doono oo gacan ku siin doono aad iyo aad baan santii gudoomiyaha ka soo dhaweynaya salaamu calaykum warahmatullahi salaan kadib marka hore ilaahay baa mahad leh maanta halkan isugu keenay iyo suurto geliyey in xarunta caafimaad ee quruxda badan leh ay dhammaystiranto oo lagu wada farxo dadka deegaanka ee MCH-ka ama xaruntan caafimaad ee qiimaha leh loo furay waxa weeye runtii xarun caafimaad oo MCH ka ballaaran MCH waxa la yiraahdaa tan tu ka yar laakiin
tani waa xarun ka ballaaran MCH weeyaan waxyaabo fara badan ayaa lagu qaban karaa marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa degmada hoose oo ku tacabtay oo kharash gelisay dhismaha waxa ka hawl badan shaqaalaha waagi bariyaba bil kastaba u baahan in lacag la siiyo iyo dawada iyo service joogtada ah taasaa wax walba ka qiimo badan oo lacag badan ku baxaysa waxa ka badnaanaysa taa sababtoo ah wax joogto ah oo bil walba ah marka in la sii wado la sii joogteeyo marka hore aad baan taa iyo kharashkii hore ee dhismaha ee marka hore la geliyay waxa kale oo mar labaad mahad celinayna iyagana wasaaradda caafimaadka oo qorshaheeda ahayd marka catchment area-da la eego dadka degan intay u qalmaan in loo sameeyo xarun caafimaad la ogolaado la gartay iyaguna mahad celinaya waxaan si gaara ugu sii mahad celinayaa shaqaalaha caafimaadka ee gobolka dhamaantii laga bilaabo isuduwe ilaa cleaner heegan ku jira oo shaqadooda caafimaad hawl aan dadka kala qabin qaba oo ummadooda u shaqeynaya waxa la siyaana ay iska yihiin farguudkood aan laakiin taa u joojinay ummadooda u shaqeeya iyagoo kuleelka iyo ceebta iyo dhibaatada ku jira aad baan uga mahad celinayaa ambalaasyadii ayaan dadka human resource laftoodii oo diyaar ah waxa weeyaan waa wax aad u qiimo badan oo aan muxuu ahaayay la qiimeyn karin xaruntan caafimaad la dhamaystir dawadii la dhig shaqaalihii la keen waxa idinla gudboon dadka degan area-da in iyagu ilaashadaan wixii agabka ama arrimaha bulshada adeega bulshada kolba in baa iman biyihii iyo leydhkii iyo caafimaadkii iyo waxbarashadii intaba waa haysaan waa intii ugu muhiimsanayd waxa kale ee dhiman eed yara dareemaysaanna waa la soo dhammaystiray dowladdu wax walba idinla garab taagan tahay mahadnaqeedun baa idinla guddoon wasilaahi tawfiiq assalaamu calaykum